kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ilahantiiba meel kasta oo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka martisoor aad ka daawan doontaa True Cable TV. barnaamijka waxaa idin soo saar doontaa anigoo ah Sagal Maxamed Fuuxaali. toddobaadkan martida barnaamijku waxa weeyaan hal abuur Cabdixakiin Ismaaciil Maxamed oo loo yaqaan Samawade. marka ugu horeysa waan ku soo dhaweynaa barnaamijka martisoor oo caawa marti ku tahay hal abuur. Wadnaasati dhamaantiin aad baan ugu dhawahay barnaamijka adiga iyo bahda kula shaqeynaysa iyo muuqaalka iyo TV-ga aad baan ugu mahadcelinayaa oo dhawahay waa tahay barnaamijka martisoor martibad caawa nagu tahay suugaantaada iyo curiyaashaadana aad bay dadku xiiseeyaan u daawadaan bulshadu marka ugu horeyn waxaad nala wadaagtaa taariikhdaada halkaad ku dhalatay halkaad ku barbaartay haddii la idhaahdo taariikh qofku dee qof yaro mug weyn baa la raadinayaayoo yaro daahaana laakiin waxa weeyaan khasbiyan qofka barnaamijka martida ku ah inuu dadweynaha isbaro magacaygu waa Cabdixakiin Ismaaciil intay taqaanaana hay garan oo tahay Cabdixakiin Samawade Cabdixakiin Samawade badi wax la moodaa inuu aabahay yahay laakiin waa aniga ana Cabdixakiina Samawaduna waa aniga Samawade aad baa la baxay anu baasku wax ku dhashay deegaan runtii tan magaalo ka duwan nolol tan magaalo say u taala aanu oolin nolol tan ka baxsan isla markaana le astaamo iyo deegaamo iyo runtii wax la raaco wax la daba joogo qofku kaalin leeyahay deegaantu ay kaalin leedahay qofka iyo maxaa la dhahaa deegaantuna ay si weyn isugu xiran yihiin maarankeeda iyo maxaa la dhahaa nolol maalmeedkeedu inuu ta magaalo ka duwan yahay waxa ku dhashay aaga hawdka goor lagu qiyaaso 1997 dheeraad ayaan ku dhashay halkaasaan runtii aan kusoo maxaa la dhahaa kusoo kacaamay ama kusoo barbaaray halkaasaan kusoo maray meesiyada kala duwan runtii la dhaqdo oo dee ugu hooseeyo waxari mar qof dabka ka beedhay uu raad qaado xitaa ugu dhaw hooyaga lagu bilaabo ilaa geel baan ka soo gaaray goorhaan de kacaamayo aan de xogaa nin adag noqday oo dabadhoon fiican ahaa ayaan ka soo galay saaxadda magaalo iyo wax barasho iyo aan soo galay nolosha xadaaradaade Hargeysan ka bilaabay waxbarashadii dugsiga hoose dhexe waxaan ka bilaabay Sheekh Ali Ibrahim ama Biyadacay sadba ka loo garnow yahay waxaan ka gaaray ilaa dugsiga hoose anaga ku dhameystay isla kii dhexaadana isagu baan ka galay dugsigii sareysna waxaan ka baxay dugsiga sare Ilays ayaan ka baxay hadda 2 sano ka hor kadib waxaan ku soo galay suuqii ama saaxadii bulshooyinta inta ugu badan ay joogtay ayaan sidii ku soo galay waxaan noqday markaa arday jaamacadeed waxaan dhigtaa kuliyadda maamulka iyo maareynta khayraadka aadamaha ama human resource management-ga jaamacadda Alfaan dhigtaa waxaan ahay mid ka mid ah macallimiinta wax ka dhigtaa dugsiyada dalka waan ku soo jiray imka 2 sano u dambeysay jaamacadda Wadayba aan macallinka ahaa sidoo kale isna xagga suuqana de waa ku jiraayo xogaa xay ganacsigana gacanta kula jiraayo waan suuqa waan ka warhaya xagana arrin waxbarashada iyo ta suugaanta laftarkeeduna iyadna waan iga qayb kamid ah noloshayda caadiga ee Cabdixakiinnimo marka laga hadlayo waa qayb kamid ah iyaduna madaynahaas baan ku soo koobaya aad baad mahadsan tahay maasooyin badan baad sameysay curisay markii kugu horeysay sidii bulshada wax u soo jeedin kartaayo waxaad soo jeedin kartaa ama aad sameysay bulshadu way qancin kartaa xillimaheed qofku marxaladda qofku uu isdareemo xogaa wax badan wax la dareema qofku waxyaabaha inta badan oo talentiga ama hibada qofku marka uu dugsiga hoose dhexe ka soo baxo uu secondary-ga soo galo uu muuqaal ahaan isbedelo sidoo kale waxyaabaha isla bedelo wax kamid ah maskaxaan waxaan marka hore ku fikiri jirin aad ku fikirto waxaan marka hore jeclaan jirin aad jeclaato aad danayso aad raadiso markaan soo galay dugsiga sare fasalkii 2 markaan ahaa xogaa horta suugaanta nolosheeda kama imanayno
noloshaydii hore asleenkeedu nolol suugaan ku dhisan bay ahayd marka taadu ma mid hidaa bay ahayd mise waxa ahayd hibe ilaahay adiga ku siiyay aan waxaan qofku marka suugaan la yiraahdo walow doorar fara badan loo kala qaadaan hal mid uma kusoo koobayo waa hibo maadaama umadeenaba la oran jiray ama dhulkeena loo jiro dhulkii gabayaaga oo halka imka mobilka ama telefoonku inoogu jiro ay ku jirtay qof baa gabay dhan loo xambaarin saarnay meel heblaayay maadaama saas suugaantu ay nolosheena uga mid ahayd aan waxaan arkaa qof kasta inuu leeyahay laakiin arinta una keento curinta isla markaan hay banaanka soo baxdo dugsigii sare markaan soo galay fasalkii labaad ahaa baan isku arkayna intaydii hore in ka badan aan danaynayo ama aan akhriyayo ama aan xifdiyayo markaasay timiday intaan unahan saacada aan soo koro ama isku dayna wax qoro inaan isku dayna wax curiyo sidii baan ku soo waday la hada aan ku wada asarka ku soo gaadhay طبعا ما شاء الله waxa jirta maansada ugu horeysa barnaamijkeena soo qabanay waxa la yiraahdaa magaceeda walaashay rumaad bal maasadan in hadii nagu hor dhacdid intaanad maasada noo bilaabin qisada ku tin ama sababta aad u sameysay waxa jirta qayb nolosheena aan la dhaadanayn cid gacan ku leh qofka inta badan hoonayntiisa ama wax ka soo bilaabanta barbaarinta wuxuu guriga kala yimaado inta badan ayuu qofku bulshada la soo dhex galaa waxa jira markaa hadba qofka ilaahay cid buu ugu dhiibaa nolosha hore barbaarinta leh meel marinta leh cid buu garabshiheedii ilaahay ugu dhiibaa waxa dhacday markaa maasadu say ku timiday waxay ahayd ilaa imkaan hay ku joogtaa rugni dhahan waritaan gadaal ugu noqdo waxa jirta magaalo soo galkaygii iyo waxbarashadaydii iyo noloshaydii asaasigeed ahayd waxa gacanta ugu weyn ka lahayd ama gacanta gabiyaanteed balahayd fikirka markii hore lahayd inaan ahaan walaalanahay halkan ahaan aad uga salaamayo Khadar Ismaaciil la yiraahdo iyada runtii noloshayda gacanta ugu weyn ka lahayd kadibna markaan isku arkay inaan suugaantuna aan arkay inaan wax hara ahayn ayaan sidii bal wax adigana ku noqda waxaad gadaal ugu noqoto isla waxba ku yaala ama hawl baa ku taala waxba ku qabiya wax sunto waxay markii hore suugaanta ku jeclaa wax kamid suugaantu ma duugoodo suugaanta laga meel baxo ma dhimato casrigeedu ma dhamaado kadibna xarsa intaas soo boqol sano meeris gabayo la yiri badarka saayo maanta hadan la adeegsanayo oo intuu gabaynimadii ka tagay murti noqday kadibna sababaha ugu waaweyn ahaan maasada hanu curiyay ba kamid ahayd waayo walaashu way ka duwan tahay dadka kale mar hooyay ku noqonaysa walaal bay ku noqonaysa saaxiib bay ku noqonaysa noloshaada wax noqonaysa qayb dhan marka gurigiina wada joogtaan quraataba laakiin markay hadan iyadii had xilkaaga uu fuulo culays inta hore ka badan ba fuulaya marka sababta aan ugu talagalay waxay ahayd in aan wax ku suntado oo isla waxba ka dambeeya maadaama waxbarashada ay noqoto noloshii kale caadigeeda ay noqoto dhamahan intii qoftay loo qaban lahayd dhan ayada ay qabanayso marka sababahan ugu talagalay bay ahayd marka iyada maasadu marley inta badan iska waramaysa iyada inta badan iska waramayso waxay gudbinayso iyadana ka dhex garananaa marka hadii aan bilaabo waxa tiri walaashay rumaaday waaxyaha jirkaygiyo walaashay rumaaday waaxyaha dareenkiyo wadayaasha dhiigay kolka aan walaaceen walbahaar la tiiciyo kolka aan wareeray waayuhu ilumiyaan wehelkii kaabe wanaag xasiliyay walaashay rumaaday waqal ii darooro diiftayga waabay walaashii waxbarashada waafi dhansiisiyo ruux igu warwaro oo wanaagayga dhiibshay walaashay rumaaday nafla waa ayaankii ubax uu waraabiyay inuu waayo gooste waxaan ahay maxsuulkii ubax wadar abqaalkii walaashay rumaaday adduun waa wareego ruuxa maanta waalani wuxuu ahaa shalay uun ruux ku weyn tolkiiso la weydiiyo taladee waayaha xakama suray walaashay rumaaday qofna waari maayo waqtaa liicin doonee wuxuu hayay ilaahay nafla waa u siman yahay walaashay rumaaday haddii aan wadku helin intaan waaye noolahay waxa aan u noolahay adigoo dantaadee inaan kaa wareegiyo wajigaba hayga filan walaashay rumaaday nolol aad u waasican wacan oo iftiin badan aan kula wadaagay malaa'igta wax qaadiyo mawdku kuma wajafiyo maalmaha warqaad kale wajiba adeegay ifka farax ku waaro abidka hawiiqmine weliga horow soco waayaha gadoome
galab waliba noocahay warsan kuugu baaqiyo abid kuma walaacshaan warwarlii ku noolow warwarii ku noolo dabcan haa naasay ma sidaasna xageeyta aad iyo aad cabdi xakiin suugaantu ama hal abuuradu muddooyinkii u dambeeyay ama sanadihii u dambeeyay waxay ahaayeen dhalinyaradu inay xoog u soo bataan hal abuuradu ma waxaan oran karnaa waa barasho waxay noqotay barasho hal abuurnimadii waxa jira waxaad moodaa dadka waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxa la yiraahdaa dadkeena waxa iska jira dad dayriyo nolosha ka dayriya oo dhahdo tusaalahaan dadkii way xumaadeen tanaa dhacday laakiin dhinaca kale marka laga eego waxa jira kacaan aad u muhiim ah oo waxaan jecelahay inuu sii bato qofku inuu waxna qoro waxna akhriyo waxaad arkaysaa qalinkii uu batay wax akhriskiina soo kala uu batay kaydka lagu darsanayo maktabadaha Soomaaliduna aad buu sii badanaya marka wax badan oo la akhriyo waxay keenaysaa wax badan oo la weeleeyo marka maanta barato sida gabay sida loo curiyado buug markaad akhrido dabcan waxa isku dayaysaa inaad wixii aad maskaxdaada aad ku ariso marka waxa leedahay akhriskii badnaa ayuun baa sababaynay akhriskii badnaa iyo fahamka laga qaatay inay wax badan hay taras oo hay meelo badan noo buuxinayso fahamka ee la qaatay ayaa keenay inuu halabuur ku sii bato oo waxaad arkaysaa qof isagoo wixii gacanta ku haysta oo wixii awooda oo wuxuu leeyahay samaysan kara oo dareenadiisa ku gudbin kara waxa laga yaabaa maasicid leedahay inuu isaga maagaba oo isagu iska qorto iska curisto runtii wax badan baana taatay noo kaydsamayo anuu rajo fiican baan arkaa oo waxay nagu ereygii baa noo kaydsamayo sidoo kale dhaqankii baa noo kaydsamaya dareenadii iyo wax kala duwan deegaano kala duwan baynu sawir ka helanaa markuu nin meel fog jooga oo soo maansado ku kala meel fog jooga soo maansado aniga labadiiba halkan ay ugu imanayaan labadiiba deegaantooda halkan aan ku baranaya marka waxaan u arkaa wax talaabo wanaagsan runtii inay barasho fiican ay tahayna oo maanka si fiican loo cariyo curinta ay keentayna waa qodob wanaagsan dhalinyartu inay barato ay aad wanaagsan tahay aad wanaagsan tahay aad iyo aad cabdi xakiin waxa jirta markaad abwaantihiin ama hal abuuraad tihiin bulshada ama feedback ugu badan dadku idinku soo celiyaan heerka bulshada ka taagan tihiin maxaa lagu qiyaasi karaa hal abuurka iyo bulshada heerku ka taagan yahay horta bulshada hal abuurka aad bay isiisaa qofka hal abuurka aad bay isiisaa waayo isagu ilaahay baa u sahlay isaga bulshada ilaahay baa u sahlay maadaama oo isaga wax laga yaabaa shaqadan cid uma dirsan cid kuma oran ma soo curi cid kuma oranayso waxa halka ka jira ka dayri oo ka hortag cid kuma oran isaga isdiray waa diranay isagu wax isku arkaa inuu hal abuurku qofka hal abuurkii koonkan inuu ka mas'uul yahay hadii madaxweynaha la doorto wasiirada la magacaabo agaasimeyaasha la magacaabo isaga cidna ma magacaabo wax xilaan cidna ka qaaday marka taa aawadeed oo isaguna wuxuu xasanaadka ka helay inuu ilaahay bulshadiisa ugu dhex dhigo oo uu ilaahay bulshada ka siiyo marka hal abuurka bulshadu aad bay u jeceshahay aad bayna runtii loo qadariyaa qofka hal abuurka bulshahan aad baynu u qadan bulsho jecel baynu nahay runtii waxyaabo badan oo wax jira qofku ku niyad samaanayo marka waxaan aaminsanahay hal abuurka bulshadu aad bay runtii ay u soo dhaweysataa inay kaaga dhawaato runtii iyaguna waxa qurux badan bulshadu way iseynaysaa laakiin aan is dhiganin oo qofku marka la buunbuuniyo inaanu isaguna is dhigan laakiin uu qofka hal abuurkii maadaama bulshadiisu ay jeceshahay inta la jecel yahay inuu ka faa'iideysto oo maadaama bahda fanka marka la eego waxaad arkaysaa dad waaweyn oo magac leh ama dad waaweyn oo meel jooga inta badan noloshooda maaha waxa la yiraahdaa qaar wax tabcada maaha ama qaar wax meel dhigta maaha qaar wax taransada maaha waxa iyagu cid taraan mooyaane marka iyaguna wax fiican inta ka faa'iideystaan la jecel yahay ay iyaguna hay gartaan iyaguna maadaama iyagu wax tarayaan oo iyagu aan seexanayna soo jeeday bulshada daraaddeed soo jeedin in iyaguna runtii uga faa'iideystaan ayaan iska faa'iideystaan waxa jirta cabdi xakiin oo maansa kala leeyahay dhambaal maasaas waa dhambaal la dirayo fariin aad iyo aad fariintaasi loo diraya waxa loo dirayaa qof la jeclaa weli la jecel yahay dareenka ku loodan waxa weeyaan waa maase hanayna ama maase hibayna qof aad jeclayd laakiin waqtigu isu kun diiday ayaad hanaynaysa ama hibaynaysa tusaalahan qisada maasada ku socoto waxa weeyaan qof waa laba qof oo gayaana oo isbartay
oo xiriir wadaagaha baa mid ka mid ah baa wiilkeed duruufta ku adkaanaysa inanta isfahmi waayaan marka inantii ay xiriirka lahayn ay isfahmi waayaan kadibna waxaa dhacaysa markaa inantii ayaa dee waa la kala xiriirka furanaya wax iska jira beriyo dhexdaas aad iskaga badnaayo haa qolyo xaggaa ka iman jiray inay xagga waalidka odayga lagu ogyahay dee hablo qurux badan oo kale in loo yimaado kadibna odayguna de isagoo nintiisii aan wax inkastoo aad muddo dareen imika soo dhammaanaya uu yahay inuu tu yimaado oo ku idhaahdo duca iyo habaar ha dee inantunu dee ducada iska qaadanaysayo ha maadaama dee dad islaam ah nahay dareenka caynkaasa ayaa inantii lagu bixinaya idna uu maqlaya inankii inanka annagu markaa aqoon wadaag baanu ahayn bah wadaag baanu ahayn warkiisaan helaya marka maalin maalmaha kamid aan waa fadhiisanaa waan waa sheekaysanaa wuu ii sheekaynaya marka kadib markuu ii sheekeeyo kadib qofka laban baa u samayn kartaa marka qofkii maadaama aad sugaanyahan tahay sugaantuna ay hadalka caadiga ka xeel dheer tahay qofkii ama waad u hadli oo wuxuu isagu odhan lahaa baad odhani ama isagaad ka hadli ama isagaad la hadli ha qofkii de waad niyadaad u dejin waxaad odhan dee iska samir haade marka maansadan waxaan qaatay markaa go-aankaa inaan isaga ka hadliyo isagii aan ka hadliyo wuxuu odhan lahaa isagu aan anigu isku dayo ha marka runtii ilaahay uu iskaga waafajiyo maalmo dambe oonu is aragnay dareenka uu ila qaatay dee malow marka qofka hore lexjecel lahayso oo madaxa duubanaya xataa laakiin markii dambe uu ila qaatay maasad markaa sida ay ku bilaabmaysaa waxa weeyaan inta hore waxaan ka soo sheekaynaya wanaageedii wax isku ahaayeen iyo wixii ka dhaxeeyay kadibna halkay tagtay buu marka dambana ayuu u wanaajinaya si halkaa hay wax ugu noqoto maadaama qof uu jecel yahay ahaa oo agtiisa ay wax wanaagsan ka hayd halkaan inay wax wanaagsan ka noqoto ayuu doonayaa marka waxyaabaha qaar bay sawiraysaa malaha yara macquul ma aha laakiin haddana qofku sugaanta waxay qurux badan tahay sugaanta gobonimada baa qurux badan ha marka wuxuu yidhi qurux dheeli tiran oo dhaqan lagu labeeyo qof dhigaalka aayaha dhidibkiisa taagtay lafta dhuuxa hoosiyo wadnahayga dhamidii midii dhaabtay maankee aan ku dhigay kashayday dumarkaba dhabeeshii aan ku dhaadanayee maankayga dhufatay dhursugayga ruuxii hanku dhowranayee dhayalsiga u diiday dhadigaba aduunbaan kaa soo dhawaysto dhinacayga joogay waqti dheeliyaa yimid isu dhiiranaantii isagaa dhaliilaha waqtigu noqonaya marka isagaa dhaliilaha soo dhigay dhexdeeno iga dhacay qofkii aan islahaa dhaqoo dhiso una dhaarshay ruux kale qofkii dee hanuun islahaa soo dhaweyso oo garab ka dhigo gaashaan ka dhigo nolol wadaag wuxuu leeyahay waqtigan baa iga qaaday adigu wax eeda milihidba waqtigiiba eedale waqtigana eedale maadaama isagu duruufta ugu eedaynayo inkastuu dhigaal yahay inkastuu sii qornaa buu leeyahay marka wax sii yaala yahay inkastuu dhigaal yahay waxaan dhacay qoraal yahay inkastood dhaqaaqdo dhinacaagii aan tabay inkastuu nin dhiirani dhabankaagii iibsaday dhudiyee nasiibkaa dhigxumaan ayaamuhu dhibta kuma quudhaan dabaylaha dhacaya isu dhufta lamaanuhu idam alla dhinaashiyo dheeliidinma geliyaan uba doora dhaxaliyo u heldheef siyaadoo dhowr sanay asaagaa hanka iyo ku dhaaftaa sunno weey dheeflo dhamme udub hadduu yahay adiguna dhigtaatee dhismahaagu yuu dumin waqtiyada dhinaashaha waayuhu dhigdhigayaan dhugu yeela xaalkoo dhawaqaagu yuu noqon erey taagta dhimi kara qof hadal kullo ninkeeda ku kullo ha noqon buu leeyahy si aanu ninkaagan u niyad jabin dee ha dhawaqaagu yuu noqon erey taagta dhimi kara dhiiri oo ninkaagiyo alaasuu ka daba tegay dhiiri oo ninkaagiyo dhamii helka sooriye dhacdo wale astaan lehe farxaddaadu yay dhiman dhabankaaga quruxda iyo dhalaalkiisu yuu lumin dhabeel lagu dagaatay yaan dhaliil lagaa tibin anna waan dhur sugayaa nasiibkayga dhaxay iyo mar labaadna dhiilaan hayi dhiila saaree dhiirashay ku dayday dhigay oo xasuustii wixii dhacay ka xaalay waana aan dhiteeyiyo ducaan dheyga ku suray
ducaan dhiiga kuu suray inantii saas ugu macsalaaminayna saas ku macsalaamin ah وقبل waa tahay khadrow inagoo marna guntii iyo gabagabadii barnaamijka haddana fursada kuu siiyo oo ugu dambeyn iyaad u mahad celin lahayd horta bahdan muuqaal duubista iyo adigaba waan idin mahad celinayaa waxaan runtii mahad celinayaa sidoo kale bulshadu de waa saddex xun waa in waxiya inaan wax u hayo inaan wax isku nahay horta intaba waan mahad celinaya ha cidii iska dhex weydana waad igu leediin baan leeyahay inkastoo filay inaan laygu yeelanaynba sidoo kale waxaan mahad celinayaa onan marnaba ilaaweynin walaashay Khadra Ismaaciil Maxamed dee runtii waxaan de kaba tegi karayna hooyadii iyo aabahay in halkan aad baan uga salaamayaa dhammaan asxaabta ayaan iyaguna aad ugu mahad celinayaa TV-ga iyo idinka isku duubana aad baan kaaga mahad celinaa waqtiga qaaligaadna siisay hal abuur samawade daawadayaal intaas waxay nagu soo gabagaboway barnaamijkii Martisoor ka daawanseen True Cable TV barnaamijka waxaa idin soo saaratay anigoo ah Sagal Maxamed Fuuxaali intaan barnaamijka xiga ku kulmi doono waxaan idin tegnaa salaam Allah